sheegaya in rabshado cusub ay dhex maraan ciidamada AMISOM gaar ahaan ciidamada Djibouti ee gobolkaasi ku sugan iyo dadka deegaanka qaarkood taasi oo salka ku haysa dagaal beeleed dhawaanahanba ka jiray deegaanka ka tirsan gobolkaasi. haddaba si aanu wax uga ogaano rabshadahan cusub ayaanu waraysanay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax isagoo jooga magaalada Beledweyne ayaan goor sii horeysay telefoonka maanta ku waraystay oo aan weydiiyay marka hore bar inuu noo sharaxo sida ay wax u dhaceen. walaal waxyar saamdara ayaa meesha ka dhacay maartay ciidanka Djibouti AMISOM halkan jooga dadku maartay shaqadii dadku dagalamaan meesha dagaal baa ka dhacay waa lisdiray waa ka jiraan dad iska xaraaroonayo xaraaqayo maartay ka gubanayo waxyaabo badan shacabkuna maanta way isku soo baxeen maartay dadana kala haba jiraadaan hadday doonaan waxyaabaha qaarkood laakiin si nabada ay maartay u banaan baxeen maartay fikradoodan ay dhiibteen hadba siday ahayd noocay ahayd fikradooda way dhiibteen waana dhamaatay arrintaasi runtii hawl maalmeedkeedii ciidankaasi wataan si nabad ay ku joogaan meeshaan wax dhibaataana kalama kulmin. maxay dadku ka mudaharaadayeen sidee wax ku bilowdeen? dadka waxaa la gaarsiiyey information aan xaqiiq ahayn oo been ah oo waxba ka jirin oo maartay dad dana gaar oo kale way ku kicinayeen markay ogaadeen dadku inay maxaabiisan jirin guryahoodii kala aadeen waana dhamaatay hawshaas. maxay ahaayeen waxa beenta dadka loo sheegay? waxa beenta loo sheegay waxaa kamid ahaa in maartay sheegeen tilaabo adag dadkaas laga qaadayo in ay dhibaato ay la kulmayaan waxyaabaha oo dad cadow ku ah ummadaan ay maartay sameynayeen ayaa loo gudbiyey. markii loo gudbiyeyna dadku way kaceen sida national ay u kaceen maartay shay la kaca. markii dambe odayaasha aan la kulanay dhaqanka oo aan la kulanay waxbarashada magaalada oo laga hadlay waxay ogaadeen inay waddanka u jiraan laakiin gudoomiye ciidamadan Djibouti ee AMISOM waxaa la sheegay in ay u baxeen dhinaca tuulooyinka lagu dagaalamayay oo xitaa ay dad iska hor yimaadeen oo qaar ay soo xireen waxaas waxba kama jiraan maad leedahay? ciidamada nabadgelyada yihiin Hiiraan ay joogaan waxay joogaan Beledweyne joogaan Buulburdi joogaan 120 kilomitir oo gobolka Hiiraan ayay joogaan way mari karaan meel kasta way tegi karaan meel kasta hawshadan cid ma jirto waxaan ku leeyahay information kale aan la bixiyay oo la doonayay in runtii dhibaato weyn lagu geysto la doonayay in maartay dadkaas walaalka oo dowladda walaal ma waayo ciidankooduna walaal ma waayo midka horkeen war khaldan baa dadka la siiyey yaa bixiyay warkan khaldano warkan khaldan waxaa bixinaya jihooyin badan oo xal wadankan ku wadankani 25 sano ayuu la-aan yahay oo maartay sheegay dhibaato iyo qasab ku jira dadka u diidan noqda shabaabku soo bilowday maartay sheegay 7 sano ka hor inuu soo jiray wax shabaab laakiin 7 sano ka hor Soomaaliya dagaalka iyo dhibaatada ka jirtay darwada inay sababeen jira waxaan muddo soo socdeen marka maray faraha ka baxeen in xal loo raadiyo oo waliba ciidamadii ajnabiga ahaa ay soo farageliyaan dadkii hayay soo kama wanaagsanay in maamulkii baa tahay dadka deegaanka isu keentaan oo khilaafkan aad dhamaysaan. aniga intii aan meeshan hadda joogay waqti yar aan joogay may bilaaban calaada iigoodii calaada inuu leeyahay dhibaatooyin maartay sheegay dowladda dhexe dad muslimiin ka tirsan oo Hiiraan ka jeeda oo labada beelood marka ku dagaalamay ka jeeda ayaa yimaadeen safar ah naga qoraysa ugu guuleysan gudoomiyaha gobolka adiga ah marka kama saarayso Soomaaliya khilaafkan anigu ugu horeeyay hadda hadday wax dhacayaan soo adigu inta mas'uuliyadda ahayd hoostaada wax kama dhacayaan dad iskuma laynayaan gobolkii mas'uuliyadda saaran waxa waaye guuto waajibkayga oo dadka baaqna ay jiro oo odayaasha siriyo in hadda la xaliyo la jiyo waxay ka saaran tahay amniga dowladda iyo maartay ciidankaasi AMISOM nabadgelyada Soomaaliya joogay nabadgelyada joogay xalku dowladda Soomaaliya wadankan dagaalka ka ay soo maray ma aha hadda dagaalka ka bilow ana Hiiraan ka bilownay dagaalka meelo badan oo ka dhacay hadda u jiraan wala araadina waxa kullu la saraakiil farfara ee dowladda ka xaqada ayaa kullu inta oo tan dagaal saameeyay wuxuu yaalaa waa qaran ku yaala anaga qaran ma yaala qaran ku yaala
waxaadayna miyaad haysaa in saraakiil sarsare oo dowladda Soomaaliya ka tirsan federaalka ay ku lug leeyihiin dagaalada Iiraan taas waxa waaye waxay leedahay waqtigeeda iyo meeshii lagu sheegi lahaa warkaasi ay leedahay iyo ribadada lagu gudbi lahaa ilaa hadda kamala kaasi waxa uu ahaa